بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديل ku soo dhawaada barnaamijkii xisaab badnaa tartanka halabuurka ganacsiga waa barnaamij sanadlaha oo bil kasta oo bisha Boqortooyada Ramadaan taad ka daawataan warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland barnaamijka waxa lagu talagalay in ka faa'iideystaan guud ahaan dadka ku hadla afka Soomaaliga waa barnaamij lagu soo bandhigayo hibada iyo halabuurka ardayda ku jirta jaamacadaha kala duwan ee dalka gaar ahaan ardayda sanadkan waxa uu si toos ah barnaamijku u taabanaya arrimaha ganacsiga oo uu maalgelinaya isla markaasina ahmiyad u siinay bangiga caalamiga ah ee Premier Bank oo ku xidhantay ganacsato fara badan iyo bulsho fara badan oo kamid ah bulshada afka Soomaaliga ku hadashay waxaan u yeeri doonaa barnaamijkan inaynu gudagalo gudoomiyaha guddiga kala saarida ahna khabiirka barnaamijka inta badan halabuurkiisa cuntiisa kale Professor Mubarak Ibrahim R waxaan u yeeri doonaa ganacsade عبد الرحمن برالي waxaa kaloo yeeri doonaa ganacsade Cabdi Yusuf Ar oo ah mulkiilaha shirkadda Sagarjad waxaan yeeri doonaa ganacsade Ismaaciil Meecaad waa kuma Cabdi Yusuf Ar cabdi yuusuf aar waa ganacsade waxa uu 15 sano ee u dambeeyay ahaa maamulaha guud ee shirkadda caanka ah ee Sagarjad waxa uu hore uga soo shaqeeyay shirkaddii Bitag oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka shirkadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka waxa uu cabdi digriga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga waxaanu hadda wadaa digrigii labaad waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia waxaana uu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International Cabdiraxmaan waa aasaasaha iyo gudoomiyaha shirkadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika isla markaana xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho waa kuma Ismaaciil Meecaad Ismaaciil Meecaad wuxuu shahaadada heerka labaad ee masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee shirkadda Meecaad Group waana aasaasaha xarunta tababarka iyo shaqaabuurka dhalinyarada ee loo yaqaano Borama Job Center taas oo kumanaan dhalinyaro ahi xirfado iyo carbis shaqaba kaga faa'iideysteen Ismaaciil Meecaad waa aqoonyahan ganacsato ah oo aqoon iyo khibrad durugsanba u leh maamulka hogaaminta iyo hal-abuurka waa kuma Mubarak Ibrahim R Mubarak Ibrahim R waa hal-abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal-abuurka ganacsiga waana gudoomiyaha jaamacadda Badar barnaamijka habeenkan caawa waxa ka qayb gali doona arday ka socota gobolka Togdheer waa barnaamij ay ku tartamayaan in ay soo bandhigaan isla markaasina ay sameeyaan shirkad sameynaysa audit dibadda ah oo ka baxsan shirkadda gudaheeda ama waxa loo yaqaan external audit waxaan rajeynayaa inuu noqdo barnaamij xiiso badan oo macluumaad aad ka faa'iidaan waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkaasi ee daawasho wanaagsan waxa halkan ila taagan maxamed jaamac Ismaaciil iyo Saciid Ahmed maxamed waa Saciid سعيد waxaan jecelahay in halkan aad la socotay qaybihii hore barnaamijyada soo socdeen oo barnaamijka xisaab badnaa tartanka halabuurka ganacsiga ee jaamacadaha dalka hore ma uga qayb gashay may jaamacadda oo dhan runtii waa markii ugu horeysay ka qayb gasho haddaan ugu faraxsanahay laakiin ka qayb galo barnaamijka sidoo arkaysa marka media ma hore ma uga socotay barnaamijkan aad buu wanaagsan yahay marka laga reebo guddido ee ganacsato waaweyn oo arrinkii dadka ku aad ugu adkeeya aad u mahadsantahay سعيد waxaan jecelahay caawa ganacsatadaasi waaweyn ee halkan fadhida inaad miskaxdooda intay taalkaaga inaad bal isku daydo maadaama aad in badan ka fikirtay mashruucan hadhowna shirkaddaada auditku waxa laga yaabaa inay baad shaqayso xoogaysato in ganacsatada hadhow ay gasho qaarkood ay daba gasho waxaan rajeynayaa inaad ka dhaadhicin doonto barnaamijka halkan aad ku soo bandhigayso waxaan kugu wareejin doonaa 3 mid baad haysataa la wadaag bal barnaamijka aad haysiiso shaqaynaysa shirkaddaada aad baad mahadsantihiin waliba ganacsatada waxay ugu noqotay business oo walaayna beeraha iyo waxa doortaabay ahayd marka shirkadayada halabuurka ganacsiyaan wadno diiwaankiisu waa halkan ku xusan Somaliland External Financial Audit Firm inkasta oo aanu labada service aanu qabanayno mid ahaan aanu ugu magac daray dibna ma aha oo kambaniyada haddaad fiiriso
serviceka u badan ay qabtaan ayay magacyadooda inta badan raaciyaan aan soo qaato Has Petroleum wax kaloo intaa ka badan way qabtaan laba service baan insha Allah taala bixin doonaa service waxa weeyaan ka tala bixin qaabka dhaqaalaha shirkadda oo inta badan accounting-ka khuseeya maadaama fiilkayguna accounting yahay waxaan ka tala bixin doonaa qaabka internal audit-kooda uu dhismayo waxaan ka tala bixin doonaa insha Allah sida ay u diyaarsanayaan financial statements-kooda waxaan ka tala bixin doonaa qaabka ay cashuurahooda u nidaaminayaan waxaan ka tala bixin doonaa haddii alla ku samoogol yahay sida cashuuraha maartay u nidaaminayaan iyo abka iyo software-ka ay tahay inay u isticmaalaan accounting software badan ayaa jira sidaynu ognahay service-ka labaad waa service-kan aan ugu magac darnay bahasha maartay halabuurka oo ah external audit iyo internal audit inta badan dadkeen magacooda ku cusbaadaa dhici karta halabuur ganacsi weeyaan oo sida uu magacooda qaar ugu cusboonaanayaba uu yahay halabuur cusub oo si fududna lagu hirgelin karo marka shuruudihii hore ee loo dhigay la eego shuruudihii hore ee ka soo baxay xarunta tacliinta sare waana anagu laastigii u hayno insha Allah waxaanu ka tala bixin doonaa labada service baanu qaban doonaa insha Allah ganacsigu iyo halabuurku mid si fudud lagu hirgelin karo uma baahna wax ka siyaadsan xafiisyo iyo gaari sidaan ku xusnay proposal-kayga waxaan ugu dhiirigeliyay arrinkan wuxuu nagu soo dhacay halabuurkan intii aan wadnay hayaankayga waxbarasho waanu imka sanadkii u dambeysay aanu ku jirro macallimiin badan baan ugu dhiirigeliyay inaanu bilowno oo uu booskaasi u bannaan yahay waxaa kaloo dhiirigelinta qayb ka sii ah maxad runtii aan filayo inuu qayb weyn ka qaadan doono insha Allah taala horumarka dhaqaale waddanka oo ICBAS la yiraahdo oo waa dhaweyd wasaaradda maaliyaddu ay maaragtay xariga ka goysay ay furtay ICBAS waxaan rajaynaynaa inuu liisansiga caalamka uu soo saaro liisansiyada maaragtay internationalka ay qaataan nimanka xisaabiyaasha wuxuu ballan qaaday ICBAS in insha Allah way aan soo koobo ganacsigani wuxuu faa'iido ku yeelan karaa horta shaqo abuur wuxuu faa'iido ku yeelan karaa inuu kobciyo ama bilaababa industry-ga iyo suuqa accountancy waa ka shaqeystaan nimanka accounting-ga oo la yiraahdo accounting service industry waynu naqaanaa shirkadaha CPA firms-ka la yiraahdo certified public accounting firms oo USA ka jira oo industry-gan dabcan ka shaqeysta laba organization hore oo ka mid yahay waayeel ayaa isku dayay in external audit-ka ay sameeyaan laakiin maadaama ay wax ka badan service inta ka badan ay qabtaan tababaro entrepreneurship-ka waxa quseeyo way maaragtay u saamix weydeen external audit-ka iyo service-ka kala bixin aad u mahadsantahay Saciid waxaan filayaa inaad barnaamijkaagii soo bandhigtay mashruucaagiina ay ka bogteen xubnaha guddiga halka fadhiya ganacsatada waxaan ku soo dhaweynayaa ugu horreysay Cabdi Yuusuf Arbar inuu qiimeeyo mashruucaasi uu soo bandhigay Saciid oo ka socda jaamacadda gobolka Sanaag meelaha Togland haddii aan qiimeeyo waxaan siinayaa scorekaan siinayaa waa 55% waa tahay Cabdiraxmaan Buraale marka koowaad horta waan sidii caadi ahayd waan hambalyeynaya sidaad u fahansanteena waa aad baan uga helay guul waan ku rajeynayaa konton baan ku bilaabaya waa tahay aad waa mahadsan tahay ugu dambeyn Ismaaciil Macaad maxaad wajigii koowaad ama qiimeyntii koowaad aad siisay kooxda ka socota jaamacadda Togland waxaan siinayaa 60% aad baad u mahadsantihiin Saciid iyo Maxamed Jaamac waxaan jecelahay halkaa waxaad haystaan 10 daqiiqo haddii guddigu ay u baahdaan su'aalo dheeriyeed weydiiyaan oo kale ayaa laga yaabaa ilaa 15 idii gaadho laakiin waxaan rajeynayaa 10 daqiiqo kaga faa'iideysan doontaan isku difaacdaan su'aalaha guddigana aad ku hanataan in dhibcoodii hore aad la idii kordhiyo aanay dib idin ka naaqushin oo qaarkood aan waxba idin kala hadhin haddii su'aalaha ku barkataan waxaan ku wareejin doonaa mikrofoonka xubnaha halkan taagan Saciid iyo Maxamed waxaan ugu horeyn u dhiibi doonaa Cabdiraxmaan Buraale inuu noo bilaabo su'aalaha
horta waa mahadsantihiin si qurux badan ayaad isu sharaxday. su-aashaan isweydiinaya marka koowaad waxay tahay arday jaamacad dhigata iyo barnaamijka culayskiisa siday isu qaadi karayaan. auditing iyo financial services marka la bixinayo waxaa la iibinaya waa expertise, khibrad iyo aqoon. marka ma waxaad soo kiraysanaysaan dad khibrad iyo aqoon leh mise idinka laftiina ku jijabinaya? haddaad soo kiraysanaysaan tusaale ahaan auditor certifieda oo shahaado haysta oo shaambad haysta oo la garanayo wuxuu yahay, muxuu idinku kacayaa? ma idiin qiyaasan tahay kharash intee leeg buu idinku kacayaa? marka horta su-aashaasaan rabaa inaad marka hore intaana wax kalaba gelin. sidaad sheegtay dee dabcan serviceku waa service maaragtay dad certified ay qaban karaan. annagu dabcan de waxaan u haysanaa dherigu marka la shido dee wuu diiran yahay ee dabka laga dhigo, laakiin marka loo daayo sidiisii yahay mar hore laga soo qaaday wuu qaboobay. annagaa imika aqoontigii dhigana auditkii oo bisayla ayaa nagu jira. marka waanu soo kiraysan doonaa insha allah. waxa aanu naga caawin doono insha allah. waxba uma baahnin dabcan dabageli mayno Maraykan iyo liisansano badan inaynu dabagalo, laakiin inagiinin baa bilaabayna hawsha. waxay naga caawin doonaa ICBAS insha allah, dad certified haysta oo iyagu soo shahaadaysiinayna siiyaan. dee macallimiinteediyo dabcan aanu igana oran doono in badan baan hadal nala dul taagniideen, bal waa kana is tijaabiya idinkana aanu oran doono insha allah. kaasaasay noqonaysa insha allah. okay, aan halkaa sii dabagala consulting servicesku ama in general yani adeegyada la talinta. sidaan hore u sheegay dadka ka shaqeeya waa dad aada u qaaliya, ma aragtaa, oo ay adag tahay in maxaa la dhahdaa la kiraysan karo. so haddii tusaale ahaan aan idinku idhahdo ii sameeya external audit, lacag intee leg ba ay charge garaynaysaan? haddii ila waxaan idinka rabaa CV-yo dadka ii qabanaya shaqada, haddaan ka dhex waayo CBA ama ACCA ama dad maaragtay khibrad badan u leh iyo waayo aragnimo, waxaan u qaadanayaa inaanay ii dhacayn shaqo wanaagsani. markaa waad ku qasbantihiin markaad ii imanaysaan proposalkiina inaad dad noocaasa keentaan. so lacag intee leg baad tusaale ahaan oo kale aad charge garaynaysaan? dadka hawsha qabanaya maxay idin charge garanayaan? ma xisaabtanteen? haa, dabcan dee laba su-aalood oo isku dhex jiray inay yihiin baan filayaa. ka hore waanu ka jawaabnay, waanu keensan doonaa shaqaale maaragtay qanciya adeegyada iyo dadka aan ugu qaban doona adeegyada. taas halkaas weeyaan. ta kale qiimo u samaynta waxa pricing la yiraahdo suuqa ayaa go'aamiya. xafiiskaagan iyo taygaagan iyo waxan ma go'aamiyo. supply iyo demand maxaa waxan baahi loo qabaayo maxaad ka haysaa un baa go'aamisa. waxaan filayaa inuu waqtigiisii joogo waqtigan. dabcan auditorska waxay ku khasban yihiin inay maaragtay shaqadan nala bilaabaan. waxaan pricingka waxaanu eegi doonaa suuqa. haddii maaragtay madaxdayada iyo dadka aanu la tashanay ayaa nala dejin doona insha allah pricingka. laakiin annagu waxaan ku xisaabtanay halkii saac in lagu qaban karo sida maaragtay estimationkaygu yahay in lagu qaban karo $10 oo quliya, oo qofkii aad maalinkaa maaragtay 24 saac aad tala bixin u siisay aad $240 ka qaadi karto. marka waxaa la samayn karaa halka mushahar uu kaa dooni lahaa. inta badan ganacsadayaal waa tiino idinku dabala waxa qaadataan maaragtay sheerka maaragtay nimanka auditorska anagu bilayaal u qaa sidii waashmaanada bilal maaragtay u qormayno. waxaanu la geli doonaa contract. marka 6 bilood ba waxay maaragtay company u shaqeeyo contract ay ku qaadan doonaan insha Allah taala. su-aashan ku weydiinaya waxa weeye hawshan horta runtii auditingku waa hawl wadanka aada looga baahan yahay. marka waxaan horta kuu sheegaya inaanay wax cusub oo fikir cusub aanay ahayn ee ay jiraan so many auditing firms ka shaqeeya wadanka. su-aasha aan idinka idin weydiinaya waxa weeye wadankeena waxaa jira shirkadaha ama dadka xisaabaadku aad bay sensitive uga yihiin in la baadho.
iyagoo ka cabsi qaba in guntooda la ogaado tusaale ahaan waxa uu faa'iido sida uu socdo hantidu haysto waxa waliba in yar baa fahamsan sidee ugu qancinaysaan dadka ina adigoo aydaan isgaranayn oo qof fresh oo jaamacad ka soo baxay ad company gudihiisa intood ku dhacbaad tidhaahdo waan idin baadhayaa sidee baad qofkaa ugu qancinaysaa inuu idin aamino oo uu idin trust gareeyo waa mid qodobka labaad maxaa isticmaalaysaan tools nooceeya khibrad nooceeya softwares nooceeya imika tusaale ahaan company kasta wuxuu leeyahay software u gaaro xisaabaada imika tusaale ahaan companygayga oo kale dee wuxuu leeyahay software gaar oo isticmaalo idinku markaad audit garaynaysaan aad companygayga audit garaynaysaan softwareado dhan ma aqoon baa u leedin mise cid baa sidaa Cabdiraxmaan sheegayay oo applicable baa u soo kareysanaysaan iyana waa mid qodobka ugu dambeeya waxa weeye in aad bal nagu qanciso faa'iidada aad ka samaynaysaan barnaamijkan iyo shaqo abuurka uu cid u samaynayo maadaama aad dad expertise aad kareysanaysaan ma local baa ka kareysanaysaan mise dibad baa ka kareysanaysaan saddexdaas su'aalood waan idinku badiyay raalli ahaada waad mahadsan tahay su-aasha hore igu celi sidee dadka ugu qancinaysaan inaad inuu idin aamino trust gareeyo ha wuxuudii baa gudihii u galeysaan waxa leeyahay waan idin audit garanaynaa marka dadkeenuna waxaan ma fahamsanaa markaas ay ugu qancinaysaan waan fahmay marka hore wax baadha waa internal audit iyaga marka hore oo company-gaasi internal audit baa baadha waa sababta uu leeyahay external sidoo uu aaminayo qofka external audit ugu aaminsiinayo waxaan badbaadinayaa company-giisii waa inuu internal audit-ku waa la sii ogyahay goortu yimaado iyo goortu soo hawl galo anigu markaan external audit ahay isagu maan ka qaadanaya overview yar oo uu siiyo oo ku saabsan company-giisa saas oo ay tahay waxaan ku qancinayaa company-giisa waxa gudaha company-giisa ku jira ama balance sheet-kiisa ka dhacaya oo result sax ah inaan soo gudbiyo taas waxay ka saaraysaa sidaan aniga leysii ogaanin cidina aan iga sii warqabin goorta aan samaynayo iyo xilliga aan samaynayo sida aan u samaynayana waxaan ku qancinayaa cidda markaasi aan u tagayo waa run oo ma ogola inta badan in ganacsatadu la ogaado hadhaagooda laakiin waxaan isku dayaynaa anagu inaanu ku qancino marka ay noogu imaadaan sababtoo ah waxaan noo shaqayn doonaa ama aan qoran doonaa cid experience u leh certificate-keedina sidata nagana caawinaysa inay hawshaasi qabtaan si loogu qanco certificate-kooda tusaale ahaan oo kale adigaan kuu yimi marka aad doonayo inaan kuu soo bandhigo ama meel aad iga soo aragto social media oo kale waad ii timi waxaad i weydiisay waxaan qabanayo saan u qabanayo cidda iga qabanaysa waxaan isku dayayaa inaan kugu qanciyo miiska kuu soo saaro ciddaasi oo certificate-keedii hayo dokumentigeediina xareysan yahay si aad adigu marka hore ugu qanacdo adigu marka aad ku qanacdo markaasaad ii ogolaanaysaa inaan meeshaadi sameeyo marka waxa keenaysa qanaca inaan marka hore kugu qanciyo cidda ii qabanaysa way dhan tahay laakiin de markaad tiri external auditka qof aanay garanaysa ugu qancayaan internal auditka ma la saaxiib bay yihiin waaba yaabay internal auditka ma saaxiib kolleyba internal auditka wuu yimaadaa ma aha qof ay maaragtay waa qof maaragtay CAO-ga u shaqeeya sidoodii un weeye tabtoodii way kala madax bannaan yihiin midna CAO-ga u shaqeeya midna board of directors-ka sida naqaano marka tabtii un weeyaan siday internal auditka ugu qancayeen bay external auditkana ugu qancayaan su-aashii igu celi labaad ها طبعا maxaa isticmaalaysaa طبعا inta badan auditku tool u gaar ah ma isticmaalo sida accounting oo kale QuickBook iyo waxan ma isticmaalo laakiin procedure ay isticmaalo procedures-ka waxa kamid ah inuu fahansan yahay software walba company uu isticmaalo hada PhD isticmaalo QuickBook hada isticmaalo waxa kale marka fahanka iyaga aan fahansanay software-iska anagu taan document ku diyaarinayno maartay ku diyaarinayno xogtayada taas waan samayn doonaa hadda nooma diyaarsan laakiin way fududahay si maartay software loo sameeyo laakiin taa waxaan u arkaa inay ka muhiimsan tahay inuu software-iska company-gan uu isticmaalayo uu og yahay uu fahansan yahay QuickBook PhD waxa kale iyo kuwa samaysteen marka insha Allah saasay loo warsaynaa waxay ahayd profitka igu yara celi wax yar macnihii barnaamijkiinan maxaa ka macaashaysaan bal iyo noo yara sharax waliba xisaab ahaan noogu sharaxo maadaama aad auditors tihiin oo accounting-kiina aqoon badan u leedihiin bal ilbiriqsi cost of goods sold-kii iyo revenue iyo wixii saa u kala jaro bal nagu qanacay ha kolley dee waxaan u malaynayaa inta badan inuu ka eegayo maartay shirkadii uu maartay isagu ka soo shaqeynayay oo revenue internal wixii uu xasuusan yahay aad buu mahadsan yahay
marka taa waxa weeye sidaan profitka u samaynaynaa waa sidaan adeega u qabanaynaa annaga dabcan waxa u badan ee naga baxaya marka energy-ga dadka laga reebo iyo maaragtay dokumentiyada aan isticmaalayno waxaan u badan ee naga baxaya waa shidaalka gaariga naga baxaya marka service adeega dakhliga aanu ka helno waa aniga kugu soo sheegay kuuli halkii saac waxaanu estimate garaynay in lagu shaqayn karo $10 maalinkii adeega aad u qabato waa $240 marka hadda auditna sidiisaba haddaanu de iska dukaan la audit garaynaya ahayn dee maalin quriyo laguma qabto oo waxa lagu qabtaa wax intaa kolley sidiiska bishii waa ku qoray meesha way qiyaasay ma imisa weeye kaad qortay ma haka waxaan qiyaastay inaanu samayn karno 100 surface oo kale 100 surface inaanu samayn karno bishii ma sanadkii inaanu samayn karno 100 surface sanadkii maaha bishii 100 surface lacag intee lag ba ka soo baxaysa lacag intee lag dabcan halkii saac hadii lagu dhufto $100 ba ka soo baxaysa halkii saac quriyo haddaad u shaqayso kambariga laakiin wax intaa ka badan haddaad u shaqayso dee 10 kun baad ku sii dhufsanaysaa insha Allah zero ba xagga dambe kaga darsami doona insha Allah zero xagga dambe Saciid iyo Maxamed Togdheer University waan soo dhaweynaynaa bilowgii baad nagu qaadqaado aftaanimada reer Burca ka muuqata marka aad iyo aad soo dhaweynaa marka koobaad waxaad ku bilowday in au service-kan oo kale aan dalka jirin sida opportunity-ga kugu qoran SWOT analysis-ka aad plan ku samaysay ma Burcayna ka jirin mise Somaliland bayna ka jirin aan kugu daro shaqooyinkan qabta mid ka mid ah waa inaan urur NGO anoo manager oo manage gareeyo sanad kasta auditor report ka external ka waan sameeyaa mashruuca iyo socodshadiisa ku xiran tahay already dad jira ay sameeyay marka ma oran kartid dalka ma jirto taas oo qodob koobaad qodobka igu xiga ninka sameeyaa isaga expert ah marka gacan labaad ma hadda expertise-kii mustawihii adigu saad sheegaysaan ma joogtaan oo dad baad soo hayargaraysanaysaan marka sidee qiimo ahaan markaad eegto oo xoogaa hansileeyahay malaha way idinku yar ballaaratay qaybta xisaabtii tooskii sidee qofka hadda jira already ku shaqaynaya isagu khibradii leh qiimaha uga qaadayo adoo had uga dawanaan kartaa adigoo gacan labaad isticmaalayo qof khabiro soo hayargaraysanaya ama soo karaysanaya horta su-aashii hore dee waad i weydiisay bisaad ka jawaabtay intaad i weydiisay baad ka jawaabtay waxaa tidhi maaragtay way jiraan haddana waxaa tidhi dee waa bal noo sheeg miyay waddanka ka jiraan haddana waxaa tidhi anaaba ii shaqeeya marka waxba halkaa maaragtay waxba ku noqon maayo su-aasha xigtaa waxay tahay bal ka waran dee waxaan u fahmay labadiinnan gacmood profit badan ma soo saari kartaan saa miyaan u fahmay waa laydinka raqiisnaan karaa haddii laka raqiisnaado dee waa marna laka dheereeyey insha Allah laakiin mar haddii aynu cusubnaho bisin lahay suuqana waxaa lagu galaa sidiisaba qiimo raqiisa lagu galaayo hoose oo aad hoose lagu galaa طبعا هذا بس tigaaba dhacay burcad bayskiinu yahay businesska u badanna Hargeysa iyo xafiisyada dawladda iyo injooyada halkan ay u badan yihiin marka ma soo guureysaan oo halkan xafiis ma ka furaysaan noloshii iyo deganaanshihii iyo kharashka ma ku xisaabtanteen mise burcad maaragtay online ka soo gelaysaan bahalka bismillah waxaan fadhigay waa burco haddii odhog loo baahdo in Hargeysa laga sameeyo soo nagan haysana gaarigii kanal soo shidaalna soo bixinno soo lahaynaa nidaamkii wixii waan soo sameeynaa waa soo guriga noqonaynaa halkii waa imanayna laakiin markuu waa tarkii ka bedeli mayno gobolka Togdheer buu ahaanaya ku noqonay insha Allah taala waxa jiri dabcan Hargeysa ku qoray meeshan oo xafiiskuna Hargeysa baa ku qoray barnaamijkana waxa laga yaabaa lacag bixintiinu inay 3 bilood ay gaadho 3 bilood oo intaan jaamacadda soo dhameynayno dee joogmayno gobolkii ragge xaggana soo ganacsi tagteen la dahabshiboo kaydila joogo ka soo carar magaaladiisii xaggana insha Allah taala waa noo diyaarin doontaa wixii dee insha Allah aad baa u mahadsanyihiin shacabka loo tumayo Saciid iyo Maxamed aad baan ku mahadnaqayaa waxaad gasheen difaac dheer difaac adag baad gasheen nimankii ganacsadaha dee odhadkii iyo hawlahoodii baad la gasheen kolley odhadana way isticmaalaan iyaga laftigoodu waxaan geli doonaa qiimeyntiinii labaad bal haddaba wixii isdifaaciinii ka soo baxay waxaan ku bilaabayaa markan Ismaaciil Meecaad Ismaaciil kooxdii ka socotay gobolka Togdheer ee jaamacadda gobolka Togdheer markii ay isdifaaceen maxaad
dhibcahaagii hore iska bedelaya runtii aad baan mar kale u salaamayaa marka hadalka guud iyo istifaacidda guud iyo aftaanimada marka laga yimaadeen nambarada aan isku gegeysto qiimeyntii saxdii aan sameeyo 5 dhibcood baan ka jaray 5 dhibcood baad xisaabta hore ka jirtay waa tahay cabdi yuusuf baar intii hore aad ku daysay waa tahay ugu dambeyn cabdiraxmaan buraale intii hore day waa tahay waxaan diri jeedinayaa wareegga saddexaad inaad guulaysan doontaan dhibciinuna inaad idiin kordhi doonaan shacabka igula sii dhaweeyaan kooxdan u dambeysay ee habeenkan caawa aad nala daawanaysay kooxdii ka socotay jaamacadda gobolka togdheer waxaan u rajaynayaa inay guulaystaan isla markaasina ay ka soo bixi doonaan gurbiyada dambe iyagoo guulaystay waxaa kaloo dhammaanba u mahadnaqaya howlwadnida barnaamijka ka qayb qaatay jaamacadda bedel oo barnaamijka martigelisay bangiga caalamiga ah Premier Bank oo isaguna si joogta barnaamijka u maalgeliya howlwadida kale ee madasha ku sugan iyo dhammaanba cid kastoo barnaamijka gacan ku lahayd fikir iyo xoog intaba barnaamij kale xiisamada kala mid ah koorta ku kulmana dhammaantiin waxaad ku dhaafanaa kulanti dambe oo xiiso badan Ramadaan Kariim habeen wanaagsan oo wacan